السلام عليكم daawade ku soo dhawow xalqadii 7 iyo 8aad ee barnaamijka fariimaha quraanka barnaamijkaas oo maalin kasta oo Ramadaan ah idinka yimaada barta YouTube-ka uu ku leeyahay kanaalka Qumane iyo sidoo kale ciwaanka Facebook ee Sakariya Cabdallah Haruun fariinteena maanta waxa weeye aayadaha 11 ilaa 18 ee suurada Al-A'raf Rabbi لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وان إذن أبورني waanan idin suuraynay markaasaan nidhi malaa'igta u sujuuda nabi aadam waanay sujuudeen ibliise kama mid ahayn kuwa sujuuda wuxuu yiri ilaahay maxaa ka reebay inaad sujuudo markaan ku faray wuxuu yiri aniga ayaa ka khayr badan waxa aad iga abuurtay dab isagana waxa aad ka abuurtay dhoobo wuxuu yiri ilaahay ka deg jannada xaggeeda xaq uma lihid in aad isku dhex kibrisidee bax waxaad ka mid tahay kuwa duleysane wuxuu yiri iikaadi waxa ay dilin ilaa iyo maalinta la isoo saarayo wuxuu ku yiri ilaahay waxa aad ka mid tahay kuwa la sugayo wuxuu yiri ibaadiyeyntaada aawadeed waxaan adoomahaaga u fadhiisan jidka toosan oo waan lumin waxaanan kaga iman hortooda gadaashooda midigta iyo bidixda mana helisid badankooda oo shukriya waxa uu ilaahay ku yiri ka bax jannada xaggeeda adiga oo maagan lana fogeeyay cidii ku raacdana dhammaantiin waxa la idinka buuxin jahannama walaal waxa aad ila sawirtaa cadow sida ilaahay tilmaamay inaga arkaya meel aynaan ka arkayn cadow haysta ballanqaad ah in fursad la siiyay ballanqaad ku galay in aanu aniga iyo adiga inadayn haddii ay dhacdo in aynu fahanno mid ka mid ah tabihiisa oo in aynu iska joojino taag u yeelano waa uu iskaga tagayaa jihada iyo dhinacaas oo meel kale ayaa uu isku dayayaa waayo shaqadiisa ayaa ah habaabinta kuwa hanuunsan sidee ayaa aynu isugu dhiibnay qalladda aan seexan ee aan nasan waxa hurdada ka kaxeeyeyna uu yahay sidii uu gacanta inoogu dhigi lahaa sidee ayaa aynu isugu dhiibnaa kaaga darane waxa uu quraanka kariimka ah inoo sheegay in uu ilaahay hortiisa ka cadaynayo in uu bari inaga yahay wax allaale iyo wax uu inoo tarayaana aanay jirin baraarug walaal daawade waa inoo bari iyo fariin kale oo ka mid ah fariimaha qotada dheer ee quraanka assalaamu calaykum